السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waan idin salaamay waa maama Soomaali adduunkan Ilaahay abuurtay maalmahan waa ka maqnaa media waxaanan uga maqnaa ma soo fariisan karin waan xumaaday waanan ooyay waanan naxay waxaana qof Soomaaliya waxaan ku dhashay dalka Soomaaliya waxaan ku soo koray dalka Soomaaliya waxaanahay Soomaali waxaanan ahaan doonaa Soomaali waxaanan ku dhiman doonaa Soomaali waxaan ku noolahay dalka Canada waqti fara badanna aan ku noolaa dalkayga hooyo aan ku dhashay waxay ugu dambeysay 23 sano markaan jiray maantana ku tijirbaan historyga Soomaaliya dagaalkii Soomaaliya markuu dhacay oo Soomaali kala gurtay 19 jir baan ahaa waxaan soo arkay cadaab adduun hadday jirto cadaab adduun ayaa ka dhacaysay Soomaaliya iyo yawmal qiyaamah qofku waxa uu wax ku yahay dalkiisa hooyo dal kasta oo kale waa degi kartaa laakiin dalkaagii hooyo waa qofka aad tahay waa waxa dhiiggaaga ku samaysan yahay waa meeshii aad ku dhalatay adduunka weyn qoon waliba bogcad buu ku leeyahay Israa'iil ama Yuhuuddu adduunkoo dhan bay u kala qaxeen meeshay tagaanba say ugu soo jabayeen tala waxay la dhaafi weyday halkii ay ka tageen inay ku soo noqdaan iyo Jerusalem halkii asalkoodii nabiyuna Muuse nabiyuna Ibrahim alayhi salaam nabiyuna Yusuf nabiyuna Isxaaq ay ka yimaadeen reer banu Israa'iil bartii bay ku soo noqdeen qofka Soomaaliga ah all over the world meel kasta ha tago meel kasta ha ku dhasho wuxuu ku soo noqonayaa Soomaaliya almost 30 years maalin walba waxaan sugaynay rajo iyo hoob dalkayga hooyo inuu soo roonaado 25 sano Soomaaliya ma arkay Soomaaliya qofka waxaa dalku ah meesha aad nolosha ku soo kortaa noloshaada way ku salaysantaa meesha noloshaada aad ku soo barbaarto ood ku soo korto ood ku soo aqliyaysato adduunka halkaasaad ka garanaysaa magaalada Muqdisho kuma aanan dhalan laakiin waan ku soo koray aqligayga iyo xusuustayda Soomaaliya waa inta ugu badan oo childhood ama ilmanimo ama dhalinyaranimo aan ku soo qaatay iyo koonfurta Soomaaliya oo dhan waa wax important noloshayda ku ah Soomaalidu waxay tiraahdaa afkaan diin wuxuu yiri baa la yiri afkaan doog ku daaqay caws qalalan kuma daaqayo anigu waxaan karay Soomaaliya walaal Soomaaliya isjecel waxa aan ku soo koray daris aan hal qof oo nagu qabiili ku jirin haddana dadku isjecel yahay oo walaal la yahay oo la isla cunayo la isla cabayo la isla xiranayo waxa aan ku soo koray Soomaaliya oo nabadgelyo ah oo qurux badan
oo qofka tabarta yar iyo qofka waxhaystaba laysku dhex nool yahay. waxa aan ku soo koray Soomaaliya waagii baryaba ilmuhu iskuul lacag la'aana ilmuhu aado, meelo badan oo ka midana uniformka iyo buugtaba la siinay. waxaan ku soo koray Soomaaliya isbitaalada intaanu tagno farmashigana dawada aad ka soo qaadanaysid oo aan dhib jirin, oo waalidku ilmihiisa xanuunsada ama haddaad xanuunsato adan lacag ka fakaraynin sidaad halkaa ku tagi lahayd isbitaalka un dhibkaagu ahaa. waxaan ku soo koray Soomaaliya oo jaamacad iyo scholarship labaduba free yihiin, oo qofku intuu jaamacad dabadaha ka soo noqdo dalkiisa ku soo noqdo, oo qofku intuu soo shaqaysto dalkiisa ku soo dhisto. waxaan ku soo koray Soomaaliya oo qofka Soomaaliga ah uu qiimo leeyahay, oo qof kastoo la egi uu garanayo halka qof Soomaaliya lagu xiro ama lagu dhibaateeyo dawlad ka hadasha oo u istaagta oo soo daysa including Saudi Arabia aynu leenahay. Soomaaliya oo nafta Soomaaliyeed ay qiimo ka leedahay, oo qofkii qof dilo aan loo kaadin isla markii asagana la dilo. Soomaaliya oo qofka jiran isbitaal oo aada leh. Soomaaliya oo ilmuhu meelay wax ku bartaan leh. Soomaaliya cunuga waddankiisa ka soo baxa uu shaqo helayo. dagaalka aynu Itoobiya la galnayba adduunku waxay geenaystahay nagu noqdahay nala dagaalee. Soomaaliya qiimo leh oo dawlad leh oo ruulku shaqaynayo ayaan ku soo koray, oo sharci iyo kala dambaynu ka jirto. waxaan ilaahay ka rajaynayaa Soomaaliya nabada, ilaahay inuu ituso inta aanan dhimanin. Soomaaliya qarannimadu qabiilka ka weyn tahay inuu ilaahay itusiyo. Soomaalinimada oon walaal ku wada nahay inuu ilaahay itusiyo. 30 sano qabiil waa ku qasaar, waa socon waay, halku inaga tuuray waad aragteen. Soomaaliya waa 5 farood, hadday labadan laga jaro 3dan waxba ma tarayso. haddii calaacashu jirinna farooba waxba ma tarayaan. Soomaaliya waa 5 gacmood oo la isku geeyo iskaashanaysa. Soomaaliya qofka dhulka Itoobiya haysatana Central Soomaaliya uu ah Soomaali oo ku tirsan, kan Kenyana taasaa ku tirsan. wuxuu ku tirsan yahay oo ku fakaraya qof kasta oo Soomaali ama Itoobiya ha joogo ama Kenya ha jooge dawladda Soomaaliya, ama Jabuuti ha jooga dawladda Soomaaliya. dad waay reer Jabuuti xoog iyo xooloodii isugu geeyeen inay Soomaaliya dhisanto. aniga iyo adiga iyo carruurtaada iyo carruurtayda waxaa inoo dana Soomaaliya nabad ah oo is haysata oo walaalahayga Soomaaliyeedo, haddaad Soomaali tiraahdo aniga iyo carruurtayda iyo adiga iyo carruurtaada iyo dariskeeni iyo dadkeeni iyo carruurteeni waynu ku wada jirnaa, waynu wada haysanaa. laakiin marka aad tiraahdo gobol aniga waad iga tagta, marka aad tiraahdo qabiilna aniga waad iga tagta. qabiilka aan anigu ka dhashay marka uu yiraahdo qabiil hebel aniga carruurtaydu wuu ka teg. qabiilka carruurtayduna markay yiraahdaan qabiil hebel aniga wuu iga teg. waxa ina wada deeqa oo saxan dalka weyne goglan bad iyo bari nimcadu ka buuxdo aan ku dheefsan karnaa Soomaali. ilaahay baa naga dhigay Soomaali, ilaahay baa naga dhigay Soomaaliya. waxaynu nahay halka dal oo adduunka, halka dal leh, halka midab leh, halka diin haysto, halka luqad haysto. walaalayaal waxaan dhagaysanayaa maalin dhaweeto khudbad uu jeedinayay
ninkii la dhihi jiray Ronald Reagan madaxweynihii Mareykanka asaga iyo gabadhiisu dalkeena iman jireen markay nabadda ahaayeen. Ronald Reagan waxa uu ahaa xisbiga Republicanka, waxa uu ahaa nin aad u aqli badan oo aad u wayso ah oo Ameerikaannimadu aad ugu weyn tahay. Ronald Reagan hadalkan kasa waxa ay ahayd America adduunka waqti wadan la tartami kara ma jiro. Wuxuu yiri haddaan ama Turki tago ama aan tago wadamada kaleeto oo adduunka ma qaadanayo dhalashada Turkiga. haddii aan dhalashadooda qaatana wuxuu yiri ma noqonayo Turkish. haddii aan Jarmal sharci ka qaatana ma noqonayo Jarmal. laakiin haddaan America sharci ka qaato waxa aan noqonayaa qof kasta oo wuxuu yiri America yimaada sharci buu ka qaataa wuxuuna noqdaa American citizen, wuxuuna noqdaa American. wuxuu yiri dad way adduunka wadan nala tartami karo iyo wadan nala mid noqon karo uusan jirin. haddaba wuxuu yiri qof kasta oo America yimaada it doesn't matter meeshuu ka yimid waxa uu noqdaa American citizen. adduunka wadan nala midina ma jirto. marka aynu noqono waxaan ninka hadalkiisi dad way wuxuu yiri adduunka una weligiisna gaaraynin waayo go'aanka aan qaadanay baa ah inaanu dhisno wadan qof waliba ku jiro oo la dhaho America. maskaxdii America, maalkii America, xoogii America ayaa la isku keenay. America waa European, Asian, African, Aboriginal, all over the world iyo la isku keenay. waad aragtay Soomaalidu shaqo soo qaxday ayaa American citizen. same thing with Canada. haddaba waxaan kuu sheegayaa inaad adigu walaalkaagii kula diinta ah, kula dadka ah, kula dhiigga ah adiido. Soomaali DNA markii laga qaado kadib saasay isugu waa wada same shit. waaniga carruurtayda oo kaleete walaal adoo heli kara Soomaalinimo, adoo heli kara Soomaali walaal Soomaali baan ahay markaad igu tiraahdo qalbigaygu waa ku hoggaansan yahay. qof walibana waa ku hoggaansan yahay. daada waay ada walaalaha YouTuber iga fiirsada asxaabtayda aad ii fiirsatiin ood ii jeceshiin ood hadalka wanaagsan iigu soo qortiin. waxaan ogsoonaa oon aad u fahamsanah marka aan qabiil sheegto cid kale intaan la gaarin inaan carruurtayda ka tegayo oo carruurtaydii anigu aan kala qaybsamayno. laakiin marka aan Soomaalinimo aan sheegto, islaamnimo aan sheegto, in aan adinkoo dhan qalbigiina aan ku weyn garaynayo. marka aan Soomaalinimo ku doonayo ku duulo waxaan haystaa saboodkii ama taageeradii ummadda Soomaaliyeed oo idil. laakiin marka aan qabiil ku duulo qabiil waa wax iska yar, waa waxaan macno lahayn. haddii faa'iido laga gaarayo 30 sano maxaa laga gaar? waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya oo nimcaah oo barwaaqaah oo Soomaaliya ha noolaata la yiri ayaa 10 sano saa u kacday. 10 sano ayay waxay ku tagtay wadan yaroo markaa xorriyad qaatay tucirka. qabiil ayaana soo ataagay. Soomaaliya waxay isku bedeshay jabhad. qabiil wuxuu dhalay jabhad. qabiil baa nagu bilowday, jabhad buu dhalay. jabhadu waxay dhashay dayday, waxay dhashay jirri, waxa ay dhashay mooryaan, waxa ay dhashay al-shabaab. maanta
waxa aynu xallin la'nahay waa qabiil ilmuhu dhalay iyo cudurku dhalay kaskareeyey. sakor marka ay kugu dhacdo waxa ugu horreeya aad taagayso waa maskaxdaada inay nerfis ka dhigto ood qof iska xanaaqsan oo qaylo yaru dhibta aad noqoto. waxa ku xigo oo ay afagti garaynayso waa inaad qof iska suuxayo tabartiisi aan kaa tarooli karin aad noqoto sokortaasu hadday dhacdo. hadday hay noqotona aad tahay qof madaxiisi kacsan yahay oo jirkiisii oo dhan hoos bay u degaysaa oo labada kaliyood bay ka afagti garaynaysaa. waa soconaysaa oo labada cagood bay ku ololinaysaa, jilbahay ku xanuunin jiraysaa. waxay kaa dilaysaa immune systemka ama difaaca jirka ilaa labadaada kaliyood ay fariisiso, ilaa aad sokor aad ummad dadkao dhan uga cararto, ilaa labadaada lugood iyo labadaada gacmood intay difaacaya ka qaado la jarjaro adoo nool. maalinta dambena way ku dilaysaa. qabiilku waana dulaysti sida dhiigga sokorta u raacdo noo raac. waana dulaysti dadka yagibu isku dir, dowladda yadiibuu burburiy, dadka yagibu qabiil u kala saar, goob yar buu nagu kala xirta. cadow iyo balaayadii adduunka fidnada ka waday oo wax qarribayay oo wax qarxinayo adduunka soo qarribay ayuu waddankayagii albaab uga dhigoo u fura. dhirtayadii xataa waa safarto waa la jir, xayawaankayaga waa qaxo kenya iyo waddamada darisku gala. sharafti buu naga qaado. qoomba ow yaa ku leh ayaa noqon. ixaas badeedkay ayaa carruurtayadii hilibkoodii ku qadeeyey oo ku quraacday oo ku casheeyey. libiya ayaynu slavery business uga furan ood carruurteenni maalin walba arkaysa aadan fiiri karin dhibka loo geysanayo. jeelasha adduunka ayaa allahooyoy laga wada bartay oo wiilasha iyadoo lagu fara xumeeyaa lagu dhibaateeyaa oo lagu kufsadaa. maalin walba ninkii noo soo kaco iyo geesigii noo soo kaco ayay shabaab qarxisaa oo cuntaa. qabiil taasoo dhal. now or never. waxa markaad aragto inaanay soconaynin waa la beddelaa. qabiil waa tijaabin, jabhadu waa tijaabin, qabiil waa tijaabin, jabhadu dhalayna waa tijaabin, daydaynimana waa tijaabin, moryaannimana waa tijaabin, jirirnimana waa tijaabinay. warlord waa soo arag subaxa saaka ah armeelaan qayla ka yeeraniisha meel walba qaylaa ka yeeraysa. soomaaliya waddankan kanadaan joogo waxaanu leenahay ciidamo military, ciidamada badda waa navy sealka. waxaanu leenahay air force ciidamada cirka. waxaanuna leenahay militariga infantryga caadiga ah. intaa waxaa iskale federal governmentiga. waxaanu leenahay qola la yidhaahdo RCMP oo qaybo badan u kala baxa. federal dowladda weyn baa iskale oo dadka ka dhaxaysa. gobolkanaa jooga military u gooniya ma lahan, military base way ku taallaa laakiin federaalka xukumo iskale. maxay eetoy waxaanu u celebrate garaynaa Canada Day laakiin Alberta Day iyo Ontario Day ma lihin. waxaanu leenahay provincial police iyo municipality sheriff police magaalada u gooniya ama tuulada iyo police u gooni ah gobolka. laakiin military gobol u gooniya ma lihi. waxaan markaan fiiriso ama facebookyada ama youtubeyada
gobol walba Soomaaliya maanta laga celebrate gareynayo ninta u xiran oo military oo gobolka u celebrate gareynaya ka jiro waxa weeyaan marka fartana go'aansato inay gooni u noolaato tani go'aansato far kaliyaata end of the day far kaliyaata waxaad qaban karto ayaa aad u yar Soomaaliyay kala burbur iyo kala qaybsanaan haddii faa'iido laga gaarayo Maraykan baa samayn lahaa Ingiriis baa samayn lahaa wadamada horumaray baa samayn lahaa kala qaybsanaan iyo burbur waa waxa Carabi ku hogto ku bacday oo maalinba mid gooni loo cuno Soomaaliya gidigayo walaalaana gidigayo ilmaabtaana gidigayo iyo seedig ayaan iskuna family baana wallahi waan kuugu dhaartay waxaynu kaga qurxoonahay familiga Soomaaliyeed ma jirto wariyaaya ilaahay baan idinku dhaarshay qalbigiinana ka nadiifiy caruurtiinana u sheegin qabiil waano ilaahay baan noo kala dhaliyay waa inaan isku aqoonsano laakiin wax walba Soomaalinimadu ha ka sarreyso wax walba Soomaalinimadu ha ka sarreyso hooyoy abuu korkaas wax ka ogaada ciyaalku waxaanu sheegnay dhageystaan ma garat caruurteena maxaanka iyo sharafta Soomaalinimada iyo hal dal inaan leenahay iyo hal dad inaan nahay aan barno markaan anigu kuwaaga barto oh you Somali hi yes you're my brother for something let's go masha Allah waddankan aan joognaa Canada hey are you from Alberta are you from East Coast Canada are you from Ontario that's what I isweydiiyo you from where gobolkaad ka timid laakiin ma Jarmal baad ahayd iyo ma Ingiriis baad ka timid iyo ma xagee ka timid aniga waa la weydiiyaa because anigu xijaab baan xirna accent English kan ku hadlaana accent buu leeyahay where are you originally come from I'm from Somalia wax kale ma dharo dibadaha markaan joogno I'm from Somalia magaaladan Somali all over the world ka timid baa degan ninka conservative-ka kamida ayaa hadlaya senator la soo doorto wuxuu yiri Edmonton waxa degan 20,000 Somalians it didn't say Somali Puntland Somali Somaliland Somali South Somali Jubaland Somali Banaadir never say any of that or Somali Hirshabelle Somali and Southwest ma uusan dhihin 20,000 Somalia Day Canada Justin Trudeau hadlayo waad aragteen happy Somalia Day iyo Canada Day waa beautiful calanka buluuga ana I like the color very wise man Somali qalbi fayow ayaa dooratayo markaa dawlad ku Soomaalinimadu ku dheerayd calanka buluuga ah cirka iyo xidiga it's a beautiful color walaalayaal wallahi oo billahi oo tallahi aad ayay xanuujisay geerida Yariso tacsiba ay gashay kaas Yariso wuxuu ahaa Soomaalidii aan naqaanay wuxuu ahaa Soomaalidii wadaniyiinta ahayd wuxuu ahaa Soomaali wadani ah Yariso wuxuu soo xasuusiyay Soomaaliyadii aan ku soo koro naqaanay wuxuu ahaa rajo noo soo baxday wuxuu qabtay wax la taaban karo wuxuu ka tagay tusaale wanaagsan wuxuu ahaa xaqiiqan wuxuu ahaa qof aan qofna ka baqayna Ilaahay ka baqayo wuxuu ahaa haliyay Soomaaliyeed
geesi Soomaaliyeed wuxuu u shaqaynayuu ka dhintay dalka Soomaaliyeed wuxuu u shaqaynayuu ka dhintay dadka Soomaaliyeed wuxuu dhisayay caasimadii dalka Soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa ragga soo kacay ee Soomaaliyada maanta rajada la dhisay ee aan qabiil aan ku dhisnay yariisow ilaahay oo ku naxariis ilaahay oo janna fardowsa ka waraabi wallahi you affected us and you affected me waan xumaaday wuxuu ahaa rajadii Soomaali waryaaya cadow nin allah ninkii wanaagsan oo dadku jeclaado oo wax noo qabanaya ayay rabaan inay inaga dilaan waryaaya gurigii lagu soo maleegay yariisow dilkiisa gabar Soomaaliyeed baa joogtay hooyo Soomaaliyeed baa joogtay oo wax ka ogeyd haddaad intaad carabta dhihi lahayd warqabta intaasay ku sinayd yariisow iyo intii mas-uul la dhimatay iyo intii gacal Soomaaliyeed la dhimato dalka u shaqaynay way badbaadi lahaayeen hooyada Soomaaliyeeday gabadha Soomaaliyeeday ummadda Soomaaliyeeday inta noo hartayna allah noo badbaadiyo faatixada mara yariisowna janna fardowsa allah geliyo reer yariisowna ilaahay samariya iimaan ha siiyo iyo ummadii Soomaaliyeed again mar kalaan leeyahay wallaan kuugu dhaartay geerida ilmo yariisow geerida aabihiin iyo xaaskiisii ay gaaridii odaygaaga Soomaaliya dhan bay afagti garaysa annagoo dhan bayna afagti garaysa una naga wada dhinta yariisow mana dhimane wuu dhintay historiga waa waxaanu carruurteeda dhan uga sheekaynoonu historiga la sheer garayn doono Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo ilaahay nabad waarta hana siiyo walaalayaal Soomaalinimada ha ka weynaato wax kastoo kale Soomaalinimada deeqda Soomaalinimada nagu filan Soomaalinimada naga badan nabad ilaahay waxaan ka baryaynaa Soomaalinimo iyo nabad waarta ilaahayna siiyo ilaahay walaalo waa naga dhigay ilaahay qalbigayaga ha isku soo jeediyo ilaahay qulubtayada ha israaciyo walaalayaal weyn waa guuleysanaynaa waan weyn garaynaynaa waqtiga adag qooman horaa soo dhaafay waynu ka gudbaynaa maantaynu ka adagnahay maalin walba maalintaynu ka waaya aragsanahay maalin walba nabad baan ilaahay ka barin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo